Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Walaaleyga waa idin salaamay. Waxaan horey kasoo hadalnay qeybtii hore waxay ahayd casharadii aan kasoo hadlaynay hooyada markay uurka leedahay. Anaga u kala qaadnay ilaa 3 qeybood ama 3 marxaladood. Kana waxaan kaga hadli doonaa hooyada markay gaarto xilliga foosha ama foosha. Aan kaga hadli doonaa foosha horta maxay tahay? Foosha waxaa waa xilliga uu cunuga diyaar u yahay inuu dhashto ama hooyada ay dareento xanuun 9 bilood markay dhameysata aan dhahno dhamaadka uurka. Yacni bilihii markay dhamaadeen oo hooyadii bila dhameysatay kadib waxay u diyaar garoobeysaa inay cunugii ay dhasho ama cunugii uu soo baxo. Taas waxaa loo yaqaanaa labor ama fall. Fooshu waxa ay leedahay calaamado kala duwan ay leedahay. Calaamadaha kule waxaa waaye hooyadii hore usoo dhashay way aragtay wax ka mid ah way isku aragtay. Hooyadii hore usoo dhalina kule way ka faa'iidi doontaa sida aan rajaynayo. Calaamadaha aan hore usii galno calaamadahaasi hooyo kasta way isku arki kartaa. Operation ha ku dhasho ugu dambeyn ama ha ku dhasho normal ha u dhasho. Operationka marka qaar hadii oo waqtigii hooyadii fooshi aan la gaarin qofkii la operation markaas oo kale ma calaamadaha ma heli karo oo ma dareemi karo hadii wax fool ah uusan sugin. Laakiin haday fool ay imaato kadib ay noqoto operation markaas waxaa waaye hooyadii calaamado ka mid ah calaamadahan way lahaanaysaa waa qasab. Calaamadaha waxaa ka mid ah in isku aragtid qoyaan oo wax yar oo biyo ah oo ama waxaa waaye dhiigi hala socdo ama wax yar oo jiijid ah hala socdaan. Adi qoyaan yar isku arkay walow dadka qaar ay isku arkaan biyo badan oo daadka loo yaqaan kadibna markay ka joogsadaan nabarkii uu sii kululaado fooshi sidaas ay ku sii xoogsato. Laakiin calaamada ugu horeyso waa qoyaankaas yar iyo biyaha wax ku jiraan oo yar dhiig yar ah ama wax jiijid ah ku jiraan. Qeybta labaad ama calaamada labaad oo la isku arki karo waxaa ka mid ah qeybta hoose caloosha ilaa iyo dhabarka wareegaas oo dhan oo qofkii xanuun ka dareemo. Xanuunkaasi ma aha xanuun oo yacni hooyada markay 9 gasho way iska xanuunaa dhabar xanuun ay dareemay laakiin kaas ma aha xanuun ka duwan. Dhabarka waa laga qabanayaa cabaara lagu heynayo saas markay tahay oo adi daqiiqad ama daqiiqado ka yar sakeena wax saas camal u soconaya. Waxaa kaloo ka mid ah nabar inuu ku qabto ama nabar yacni waxaan ka wada xanuun hado kale dhabarka markii laga siiyo oo laga qabto xanuunkii uu ku qabto ugu yaraan waxaad sugaysaa 1 daqiiqo oo full ah. Sikema iyo waxaas waxaa waaye markay fooshaada kala dheer tahay. Laakiin calaamadaha saxda ah oo hooyada ay diyaar ku u tahay in ay dhasho xilligaas markaas ay foosheeda tahay fall run ah waxaa ka mid ah daqiiqad kaamil ah nabarku uu heynayaa. Waxaana u dhaxeyn doono 1 daqiiqo iyo wax ka yar nabarka danuu ku soo noqonaya saas bay ahaanaysaa. Hadda waxaan ka hadlaynay waxay ahayd foosha qeybta calaamadii 3aad aan ka hadalnay. Calaamada 4aadna waxay tahay hooyadu waxay isku arkaysaa ama dareemaysaa culeyska caloosha qeybta kor oo caloosha ka saarna hoos u soo dhacaya miisaankii oo dhan wuxuu noqonayaa mid balfig soo gala ama miskaha oo soo riixo cunugii inuu dhashto diyaar u yahay. Taasna waa calaamada 4aad oo lagu garan karo. Waxaa kaloo lagu arki karaa cunugii calooshii awal waxaa waa dhaqdhaqaaqiis way badneed laakiin marka cunugii inuu dhashto uu diyaar u yahay ba dhaqaaqayo uu soo riixaya asagoo dhan hal meel buu u wada socdaa dhaqaaqiisa wuu yaraanayaa. Markuu adiga waxaa xanuunku zaaid dareentid xanuunku soo riixo kale markaas waxaad dareemaysaa dhaqaaq yar oo jug inuu ku siinayo wax saas ah. Laakiin ma ahan dhaqaaqi kor caloosha aad ka dareemayso wixii oo dhan waxa isla noqonaa wax adagoo kuusano soo bixi rabaan. Qodobka ugu dambeeyo 6aad ama calaamada ugu dambayso 6aad oo la isku arko waxaa ka mid ah mataga hooyo kasta ma lahan calaamadaas laakiin dadka qaar leh. Taas waxayna cadeyn u tahay nabarkaaga inuu zaaid u kululaaday fooshaadii ay waxaa waaye markaan ay progress fiican sameysay oo cunugiina uu dhashan rabo kale. Dadka qaar markay 8-9 gaaraan matagay bilaabaan ilaa 10 cunuga way dhalayaan maahane way ku matagaan. Taasna waxay calaamad weyn ay u tahay foosh inay zaaid u kululaato cunugii dhalan rabo. Waxaan halkaas kaga baxnay calaamadihii foosha 6 qodob ee ugu muhiimsaneed. Foosha markay tahay fall run ah calaamadahaas la isku arkaa.
كل إن شاء الله قيبت حكته موضوعية أنك هادلي دونو حاواي operation كهوية كل شيء iyo normal delivery كل فول هدي إمات normal delivery وإسكفودو هاي هوية sidaas bay ku umile laakiin operation ka dhib badan waan ka hadli doonaa insha Allah sidaa inabad